إيران oo sheegtay inay soo riday mid ka mid ah diyaaradaha Mareykanka oo ku soo xadgudubtay hawada dalkeeda xiisad cusub oo kacsan markab mar kale Iiraan ay ku garaacday sida la leeyahay goor dhaweyd maribiyoodka Hormuz Israa'iil oo ku dadaalaysa inay soo saarto daroon fara badan si ay isaga caabiso diyaaradaha darooniska ee Iiraan iyo awlaadeeda jamaacad ka taageera Iiraan ee awlaadda Iiraan ee ku sugan Ciraaq oo ka hor yimid dawladda waddankaasi Ciraaq oo doonaysa inay hub ka dhigis ku samayso xiisadaha gobolka wararkii ugu dambeeyay ayaanu barnaamijka ku faaqidi doonaa inta aan ku jirnana wixii warar soo kordhawaan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya ee geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road hadda ka hor qiimo dhibidii aan soo celinay labada bilood ahayd walaalo badan baa ka faa'iideystay oo dal iyo dibadba jooga haddana mar labaad waan soo celinay waxaan ugu baaqahayaa bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa joogta inay ka faa'iideystaan adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan waxaa intaas dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee aduunkuna maanta kulanti wanaagsan asxaabe meel kastoo naga daawareysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan ugu talagalnay waa barnaamijkeedii labaad maanta waa Jimco wanaagsan taariikhdu waa 14 bisha 8 2026 haddaba qodobo kala duwan ayaa noo soo socda balse waxaynu ka hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe haddaba haddaan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhow qoray Iiraan waxay sheegtay inay soo riday diyaarad daroona oo Mareykanku leeyahay nooceeduna yahay MQ-9 waxaana lagu soo riday deegaanka la yiraahdo Hormuzgan telefishinka Iiraan ayaa sheegay difaaca cirka hawada ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay soo rideen diyaaradda daroonka ee MQ-9 iyadoo dul maraysa gobolka Hormuzgan marka waxay leeyihiin hawadeena ku soo xadgudubtay diyaaradan waxa leedahay MQ-9 qiimaheedu wuxuu ku fadhiyaa 20 ilaa 30 milyan oo dollar oo ugu fadhiya Mareykanka halkii diyaarad oo noocan ah MQ-9 xataa wadamada kale saaxiibada xataa kama iibiyo asaga kaligiisa isticmaala diyaaradda noocaasa marka maanta mid kala la qaranamsaday awalna tan iyo markii dagaalku bilowday Iiraan waxay soo ritay 45 haddaba haddaan idin tuso warbixin shalay lagu daabacay Al Jazeera oo laga soo xigtay Washington Post waxay leedahay Washington Post waxay tiri ciidamada Mareykanku waxay qirteen inay waayeen 45 drones ah dagaalka Iiraan inta lagu jiray wargeyska liiraado Washington Post oo soo xiganaya mas'uuliyiin Mareykan wuxuu yiri waxaynu weynay oo nala ka soo riday 45 diyaaradood oo nooca MQ-9 ah waxaana la sheegay in 25% diyaaradahaasi ay ahaayeen kaydka diyaaradaha ciidamada Mareykanka ee Iiraan waliba waxay ka mid ahaayeen diyaaradaha uu ku dhaarto Mareykanka marka 45 iyo midaan galabta la soo riday ku dar
afartan iyo lix diyaaradood oo midiiba ay joogto 20 ilaa 30 milyan meel u dhaxaysa ka soo qabo 25 milyan oo dollar xabadii oo 46 ah lacag fara badan meesha ku qasaartay nimanka marka Iiraaniyiinta waxay yiraahdeen difaaceena cirka ayaa dhulka soo dhigay diyaaradaas waaye wararka kale ee cusub ee soo kordhay oo hadda aan gacanta ku hayo waxay tahay hay-adda la socodka badaha ganacsiga ee xarunteedu tahay dalka Britain ayaa war qayladaan ah soo saartay waxay tiri waxa nala soo xiriiray markab hadda dhow marayay badda Hormuz meel ku dhow markii diyaarad daroora ay nagta ka saartay diyaarad daroora oo qarxaysa lagu dhuftaale haddaba markaa tusoo warkan oo war cusuba wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm wuxuu leeyahay adda Britain ee dhanka badaha qaabilsan waxay sheegtay in markab weyn oo kuwa shidaalka qaada ah lagu weeraray diyaarad daroonisa isagoo maraya Hormuz haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan hay-adda howlgallada dhinaca ganacsiga badda ee Britain ayaa goor dhaweyd oo Jimcaha waxay sheegeen in markabkaasi kuwa shidaalka qaada ah diyaarad daroona lagu dhuftay isagoo maraya Hormuz bayaan rasmiya oo soo baxay ayaa lagu sheegay in ay la kulantay hay-adda ama la soo gaarsiiyay qayladaan markabkaasi uu ku qayladaaminayo in la soo weeraray oo diyaarad daroona ay ku dhacday haddaba ilaa hadda wararka aan haydo waxay leedahay in markabka uu soo gaaray khasaare aan sidaa u weynayn laakiin waxay sheegeen in lagu wargeliyay hay-adda shaqaalaha la socda markabka in ay bad qabaan waaye markabka cidda iskale iyo weliba sooma bixin warku waa cusub yahay xalaya ugu dambeysay laba markab oo imaaraadku leeyahay la qararamsaday nagta laga saaray waa tii carabtoo dhan ay waa cambaareen kan marka hadda nagta laga saaray kollay cidda iskale lama yaqaano weli ma soo shaac bixin laakiin hay-adda ingiriiska ee dhanka badaha qaabilsan ayaa xaqiijisay in weerarkaas uu dhacay waayahay qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanaynaa wuxuu yahay Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay soo saarayso diyaarado duuliye la'aan ama drone duuliye la'aan ah oo tiro badan ayaa soo saarayna ay yiraahdeen drone tiro badan oo duuliye la'aan ah haddaba marka wararkii ugu dambeeyay arrinkaas laga qoray waxaa haddaba warbixintu waxay sheegaysaa wakaaladda wararka Anadolu waxay leedahay wargeyska Haaretz ee Israa'iil ka soo baxa ayaa sheegay in Israa'iil ay qorsheynayso 100,000 oo diyaaradaha droniska oo kuwa wax weerara ah inay markaa sanad walba soo saari doonto hadda kadib haddaba warjiradda Haaretz waxay leedahay in ciidanka Israa'iil uu hadda garowsaday lagama maarmaanimada diyaaradaha droniska waxayna sheegeen in hadda ka shaqeynayaan sanad walba Israa'iil inay soo saarto diyaaradaha daroonka kuwa weerarka waliba 100,000 tiradooda iyo ka badan inay soo saarto way marka waxa leeyahay nimanka Iiraaniyiinta droniskani dadka nafta uga qaadeen marka hadda anagu waxa ka shaqeynaynaa drone hujuum ah droonku waa dhowr nooc diyaaradda duuliye la'aanta mid sawirro kaliya qaada waa basaas midna waxay samaysaa muxuu ahaa adeegyo kale qabataa midna waa weerar waxa la musayara hujuumiya leeyahay gantaalay ridaysa ayadoo isqarxinaysa ku soo galaysa marka kuwaas weerarka ayaa sanad kasta 100,000 ka soo sameeynayeen marka si aan isaga dhicino Iiraan iyo awlaadeeda متعشى برشاد القرآن الكريم يا علوم الشريعة هبع عصرية أونلاين أذيكو جوجا كوريجا أما قوبت هذا شقدا مركز دار التقوى وحكومة بري القرآن كهبع عصرية أونلاين ما دون كتكبر كرتو حكم ذا قرآن الكريم إكادة لغة عربية إيو علوم الشريعة استوان قلت وايد سعوطها فضلا هروكاد وهي فاهينا كالحريد نمبر ذا شاشة كان المغضى هموكاد دوكسيجا مركز دار التقوى وحوالدين الصومالية يكون رقم ذلك إنجليزكا iyo guud ahaan caalamka laydin hayaa fariin ka timid maamulka iyo macallimiinta iskuulka Beacon International Academy iskuulkan waxa uu ka saacidayaa caruurta waxbarashada International GCSE-ga si ay caruurta u helaan aqoon aad u sareysa isla markaana ay ugu biiraan jaamacadaha caalamiga waxay sidoo kale
Beacon International Academy idin diyaariyeen in caruurta laga dhisi doono akhlaaqda dhinaca diinta islaamka iyagoo la bari doono quraanka luqadda carabiga axaadiista iyo weliba af Soomaaliga fadlan la xiriir website-ka telefoonka wac isna diiwaangeli si caruurtaadu ay uga faa'iidaystaan fursadan iyagoo jooga gurigooda online ayay ku baran karaan macallimiin khibrad leh ayaa la idin diyaariyey sidoo kale waxaa la soo xiriiri kara dadka Soomaalida ah ee meel kasta ee dunida jooga oo iyaguna doonaya inay aqoontooda luqadda ay sare u qaadaan la xiriir oo hadda wac isna diiwaangeli Beacon International Academy waaye qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena labaad maanta Jimcaha waxaanu ku soo qaadanaynaa dawladda Ciraaq ayaa muddooyinkan waxay waday dadaallo ay markaa ugu sheegayso kooxaha awlaadda Iiraan ee ku sugan gudaha Ciraaq inay hubka iska dhigaan hubku inuu hal gacan ku soo aruro waa mabda guud waa kaas xisbullaahiba dawladda Lubnaan waxay leedahay hubka waa inaad dhigtaan hubku waa inuu dawladda gacantiina ku jira hadda marka kuwa Ciraaq waxay leeyihiin maxaa idinku gacantiina ku jira maxaa iska celin kartaa inaad Mareykan u khidmaysaan oo qolo kale Israa'iil u khidmaysaan oo muqaawamada aad ka dhigtaan hubka wallahi ma lidinka yeelay marka hadda marka dood kulula Ciraaq gudaheeda ka socota arida tusoo wararkii ugu dambeeyay Ciraaq wararka ka imanaya waxay sheegayaan kooxda la yiraahdo Badr oo kamid ah kooxaha taageera Iiraan waa awlaadda Iiraan ayaa si kulul u diiday inay hubkeeda dhigto hubka muqaawamada lama dhigayo tiri in awood lagu qaadana suuragal ma ah waxayna uga digeen ra'iisul wasaaraha wadankaas ninka la yiraahdo Az-Zaydi inuu mujaamalad Washington meesha kala tago mujaamalada Washington iyo waxa kan iyo waxana dadkan waxa u nacamleynayso meesha kama shaqeynayaan adeer inaad ku qanciso Mareykan iyo Israa'iil iyo kama yeelaneen marka sheekadaas oo sheeka soconaysa ma ahanay leeyihiin marka warbixintaas iyaduna halkaas ay mareen marka dawladdu maalmahan Ciraaq waxay waday dadaallo ay leedahay hubka iska dhiga dawladda marka waxay leeyihiin maxaa hub la dhigayaa maxaad celin kartaan hawadiina la iska maraya Iiraan la duqeynaya kama hadli kartaan waa la iska soo baxaya waa la duqeynaya wadankiina kama hadli kartaan marka maxaa meesha ka jira ma dawladda jirtay leeyihiin marka awlaadda Iiraan meel kasto ay joogaan hubka inay dhigaan marnaba ma dhacaysaan leeyahay xisbullaahi way soo taagantahay nimanka kanuuna way soo taagan yihiin Ciraaq jooga nimanka Yamaniinta iska badhaafurto nimanka Xuutiga iyo calankooda nimanka banaanka ku muday marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkeeni labaad maanta Jimcaha inta aan mar kale kulmayno haddii Allah idmo iyo barnaamijyo kale waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo